gudoomiyaha gobolka Hawd injineer Axmed Ciige Maxamed ayaa amar cusub ku soo rogay dadka ku leh baraagaha gudaha Balugubadle oo maalintii shalay ay ku geeriyoodeen laba caruuri waxaana amarkaasi uu kaga dhawaaqay goob ay diya ku kala wareejinayeen laba beelood oo wada degmada Balugubadle dayada waxa weeyaan marka uu raali noqdo qofka wax laga dilay ayaa sida shariicadeenu tilmaamayso in la sabirsiiyo oo sida wanaaga maanta oo kale loo galo ayay sheegaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay kii qaatayna Allah u barakeeyo gashiga uu qaatay kii kan maaratay gacantii uu ka soo bixiyay kii soo bixiyayna Ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo inta waxaan ku darayaa fariin baan doonayaa halkan u mariyo xalayto halkan waxa ku geeriyooday laba dhalinyaro oo midna 7 jir ah midna 10 jir ah barkad baa laqday sida aad u warhaysaan saaka ayaan soo aasnay halkan fariin waxaan uga dirayaa baraagaha cid laan ma dad baa leh dadkaasi wax jooga iyo wax maqanba way leeyihiin fariintan ka barsaab ahaan halkan uga diray waxa weeyaan baraagahooda inay xafitaan oo ay albaabu samaystaan oo jiingad ku xidhaan waa baraagaha magaalada dhexdeeda ka baxsan dadka meelaha magaaladu soo gaadhay baraagaha ku dhex yaala leh fariintaasi inay gaadho ayaan jecelahay iyagana waxa weeyaan baraagahooda inay dhulaystaan oo ay ka awdaan dadka haddii ay awdi waayaan annaga cagaf gelinayna ku awdayna sida ha ogaadaan insha Allah taala waxaan halkan iyagana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga u qaboojiyo in Ilaahay awal khayr qaba Ilaahay siiyo ayaan iyagana ugu dacaynaya aad iyo aad ba u mahadsantiin baraagahan Balugubadle ku yaala ayaa sanad walba waxay sababaan dhimasho caruur iyo dad waaweyn bale sababaha keenta dhimashadan ayaa ah in aanay baraagahaasi ood aanay lahayn waana goobta ay kaliyaatay ka cabaan dadka reer Balugubadle biyaha mana laha ceelale dhaadheer oo riigago oo ay ka cabaan biyo dadka deegaankana ku nool Cabdiraxmaan Samariye TV caalamiga Home Cable TV xarunta gobolka Hawd Balugubadle magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha